barnaamijkan waxaynu ku soo qaadan doonaa nolosha raaxada leh ay ku nool yihiin Maxamed bin Salmaan iyo amiirka Sheekh Hamdan bin Rashid Al Maktoum waa amiirka iska leh dhaxalka Imaaraadka Carabta. Maxamed bin Salmaan bin Abdul Aziz Al Saudi waxaa lagu naanaysaa MBS waa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga. waxa uu dhashay bishii Agoosto 31 1985 waxa uuna ku dhashay magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia. waxa uu guursaday Sara bintu Mashhuur bin Abdul Aziz oo uu guursaday 2008. dhinaca waxbarashadana waxa uu ka soo baxay jaamacadda King Saudi. waxa uuna markii ugu horeysay qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha Sacuudiga sanadkii 2017. waalidiintiisu waxay kala yihiin aabihiisa King Salmaan iyo hooyadiisa Fahda bin Suldaan. Amiir MBS waxa uu haystaa lacag dhan 3 bilyan ilaa 10 bilyan oo dollar lacag lagu qiyaasay. waxa uuna magaalada Paris uu ku leeyahay guri qiimihiisa lagu qiyaasay 300 oo milyan oo dollar. gurigaas oo uu gatay sanadkii 2015. Maxamed bin Salmaan wuxuu 500 oo milyan oo dollar ku bixiyay sanadkii 2017 doon kuwa lagu raaxaysta ah oo leh baraakad lagu dabaasho. doontaas ayaa ah tan ugu qaalisan caalamka oo dhan. doontan ayaa ah mid la isticmaalo xilligan. doontan oo la yiraahdo Serena ayaa ah doonyaha loogu jecel yahay oo nooceeda aad loogu daba dhacay. Maxamed bin Salmaan waxa uu leeyahay baabuurta ugu qaalisan caalamka waxaana ku jira noocyada Ferrari LM, Lamborghini, Land Cruiser iyo baabuurta noocyadii ugu dambeeyay ee BMW, Rolls-Royce, Bugatti iyo baabuurta loo yaqaano Bentley. Sheekh Hamdan bin Rashid Al Maktoum waa amiirka iska leh dhaxalka Imaaraadka Carabta waxaana loo yaqaanaa uu caan ku yahay Faza. wuxuu leeyahay baabuurta ugu qaalisan caalamka waxaa ku jira nooca la yiraahdo Ferrari. gaarigan oo mid ka mid ah uu joogo 3 milyan oo dollar. nooca kale uu leeyahay waxaa ka mid ah Lamborghini Venano qiimihiisu uu gaarayo 4.5 milyan oo dollar. waxaa kale uu leeyahay noocyada baabuurta ee McLaren P1 baabuurtaas oo halkii xabo uu joogo 3.5 milyan oo dollar. waxaa kale uu leeyahay nooca baabuurta ee Bugatti Veyron. gaarigan waxa uu qiimihiisu uu gaarayaa in ku dhow 6 milyan oo dollar. waxaa kale oo ku jira nooca Ferrari FL 500 oo dollar. Mercedes-Benz oo qiimihiisu gaarayo 50,000 oo dollar. Aston Martin gaariga la yiraahdo oo qiimihiisu uu gaarayo in ku dhow 3 milyan oo dollar.